الرحمن الرحيم waxaan munaasabadan kubadda cagta ee maanta ku qabanay garoonka Ubervilliers ee magaalada Paris aan ugu talagalnay inaan ku xusno xuska 1 Luulyo oo ahayd maalinkii aan qaadanay xorriyadda kana qaadanay gumeysihii Talyaaniga iyo Ingiriiska isla markaasna ay tahay maalin ummadda Soomaaliyeed ay midowday waxaan kaloo aan dadka Soomaaliyeed ee waddanka Faransiiska ku dhaqan aan ugu bashaaraynaa inaan wadno haddii Alla idmo koob weyn oo ku qabanayno waddanka Faransiiska وأنا أقول لنا هاي إن كحولنا كوح قرن ومثلي كرتا دمان بدوينها الصومالية ده كنا الوضع كفرنسيسكا وحنا هذه دوم هتقولني يا دمان دليرت الصومالية ده كسر بشيء ما أنت كوب كان وحنا أقول بشارين يا هدي الله يدم كود لوليو إن كوب سنة نحفل بجلد باريس وهيكد عنده تبريتو صدق لقلب نوع مركي تحي سعادة وضع كفرنسيسكا وحنا كوبنا لنا منطق إن كل كليات وفيها له magaalada Paris gaar ahaan la shabeed aad iyo aad ay u mahadsantihiin waan ku faraxsanahay inaan halkaan soo dhawaano maanta bismillaahir rahmaanir rahiim ma sha Allah waxa aad sharaf noogu amaanta inaan waxa way munaasabadan ku xusayno 1 Luulyo iyo 26 Juun aan ku qabanayno magaalada Paris waxa sharaf noo ah inaan maanta mar labaad waxa way munaasabadaas ku muujino astaantii ama waxa weeye maalmaheena fasaxa ama xorriyadda geeyiga Soomaaliyeed waxa maanta halkan ku dhaxmari doonta ciyaar walaaltinimo oo aan ugu talagalnay labada munaasabadood waxa waxay ka dhici doontaa magaalada Paris xaafadda Ubervilliers waxa sharafiya anigoo waxa weeye matalaya naadiga walaalaha halyeeyada ummadda Soomaaliyeed oo waxa weeye horeba looga bartay inay waxa weeye Mondiyaalka Paris inaan maanta matalayo raggaas aad arkaysan soo majeestayaasha iyo walaalkay Xuseen oo maanta waxa way iga soo horjeeda oo aan ku matalayno wax digti cadayd iyo waxa way calankii buluuga ahaa waxaan rajaynaynaa waxa way ciyaar fiican inaan soo bandhigno saaxiibkay waxaan leeyahay dagaal ma jiro waxa way waa ciyaar saaxiibtinimo oo ku muujinayno xorriyadii hadeena caadi iska dhigtido soo adkaysid galabta insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim walaalkay yaa muslim sheegay waxa weeye calankii buluuga ahaa iyo xidigtii cadayd oo matalaysa waxa weeye calanka Soomaaliya calankayga Soomaaliyeed waana maalin weyn xuskan oo ah 1 Luulyo oo dhammaan bulshada Soomaaliyeed saameyn ku leh xalfadan munaasabada oo jaaliyadu ay soo qabatay aad baan uga mahad celinaynaa sida quruxda badan oo waxa weeye nagala qayb qaadatay arrimaha bulshada iyo sportska aad baan u soo dhaweynaynaa waana wax walba lagu higto oo loo baahan yahay sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa dhammaan dhalinyarada ka soo qayb gashay kooxihii oo ah way laba kooxood oo isku dhex jir ah oo dhalinyaradii Paris oo dhan ah oo matalaya xuskan xusaya maalintan Brito ay 1 Luulyo waxaan aad mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahad celinayaa jaaliyada Soomaaliyeed ee mar walba garab taagan biidnillah insha Allah ninka saaxiibkeena waxa ciyaar wanaagsan baan insha Allah rajaynaya inaan soo bandhigno aad baan inkastoo aan wax fad badanahay aan u kacsanahay biidnillah insha Allah laakiin waxaan rajaynaya inaan ku guuleysto
dhammaan mudanayaasha isugu yimid dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Faransiiska aad baan idinkaga mahadcelinaynaa maanta munaasabada lagu xusayo 1 Luulyo 26 Juun aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaha jaaliyadda ummadda Soomaaliyeed ee dalka Faransiiska walaalkeen jaamac oo munaasabadan mas'uuliyadeeda aad xil isaga saaray gartana ummadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Faransiiska hadday ahaan lahayd dhalinyaro iyo hadday ahaan lahayd waxa weeye odayaal dhalinyaradiina shalay ugu talagalay sportif oo kubad ay ku soo dheeleen oo waxa weeye ku xuseen 1 Luulyo 26 Juun maantay oo waxa weeye isniinana ugu talagalay in ummadda Soomaaliyeed ee dalka Faransiiska ku dhaqan ay si fiican u wada qadayso waxaad aragteen waxa weeye wax kasta waxa ka muhiimsan walaalnimada iyo isku xirnaanta iyo maaragta wax wada qabsiga waxaynu nahay ummad Soomaaliyeed waxaynu wax ku nahay Soomaalinimo waxaynu wax ku wadaagnaa midnimada ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan maanta idinku bishaareeyo sanad guurada 59aad maalintii xorriyadda 1 Luulyo waxa weeye aad baad u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo odayaasha Soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka Faransiiska oo waxa weeye ayaguna kelmadahooda ka oranaya maalinta xorriyadda isbuuca xorriyadda inoo bilaabmaday marka waxa qof kasta ama qolo kasta waxay wax ku tahay waxa weeye maalmahooda xorriyadda iyo midnaanta inay waxa weeye soo jeediyaan waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo odayaasha Soomaaliyeed kelmadooda iyo labadooda say u dhahaan ayaguna dhalinyarada ayaguna lama ilaawin kelmadooda iyo labadooda say u dhahaan ay ku xusaan maalmaha xorriyadda ay isbuuca xorriyadda oo inoo bilaabmaday marka waxaan ku soo wareejinayaa odayga oo laba kelmadood noogu daraya soo dhawow Sultan بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa aad iyo aad baan u faraxsanahay maanta iyadoo calankii Soomaaliyeed halkan ka badalayo oo 1 Luulyo lagu xusayo aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin ma sha Allah weeye anigoo ku hadlaya magaca ciidamada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Faransiiska
iyo jaaliyadda Soomaaliyeed baan ku hadlaya waxaan aad ugu faraxsanahay shirkan maanta la isugu yimi oo farxad ah oo ma sha Allah aad iyo aad baan inaga mahadcelinayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa wadajir iyo inay wada noolaadaan farxad iyo barwaaqo iyo cadaalad بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta halkan ku xusaynaa sanad guuradii 59aad ee ka soo wareegtay maalinkii aan qaadanay xorriyadda ummad kasta waxay leedahay xilli ay qaadato xorriyad xilli ay u dabaaldegaan sida ummadaha kale iyo qoomiyadaha kale caalamka ay ugu dabaaldegaan markii ay xorriyadda qaateen si lamid ah ayaan anaguna maanta ugu dabaaldegaynaa waxaanu qabanay koob aan ugu talagalnay 1 Luulyo shalay ayuu soo idlaaday maantana dhalinyaradii ku kala guuleysatay biladaha bilad sharafta qofkii ugu laacibsanaa difaaci ugu laacibsanaa kabtankii dhammaan dhalinyaradii Soomaaliyeed ee shalay Burundi hadday ciyaareen qolada koobka ku guuleystay qoladii labaadna kaalinta labaad ay soo galeen ayaan biladoodii siin doonaa sidoo kale waxay maanta inoo tahay maalinkii midowga oo gobolada waqooyi iyo gobolada koonfureed ay ku midoobeen 1960kii 1 July aad iyo aad ayaa dadka Soomaaliyeed dhamaantood u mahadinayaa ee maanta xafladan ka soo qayb galay dhalinyarada la'aantood waxaan maysan qabsoomeen saldhig waxa ummadda u ah dhalinyarada hawshan soo abaabushay annaguna karaankay inta ahayd baan ka soo shaqeynay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ما شاء الله أدبوا دمات سنتي